dawladashana qiimaha badan waxaan saakaynaynaa barnaamijkeeni maxaa cusub balse kulto dhow marka hore channelkeena Cabdalla Deeqsi sidoo kale Facebook page-keena Cabdalla Xuseen Follow gare balse saaxiib waxaan saakaynaynaa heesta cusub ee soo wada qaadeen Ismaaciil Arka iyo sidoo kale gabadha fanaanada caanka Xaliimo Gobaad kuwaasi oo ku soo wada qaaday hees aan casri ah amba heesaha dambaha waqti xaadirkana heesaha lagu jecel yahay dadku ay ku tilmaameen shalay toole magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland heestan ayaa hadda baraha bulshada xiriirka internet ka dhalisay hadalhayn fara badan kuwaas oo dadku u turjunteen siyaabo kala duwan dadka qaar waxay yiraahdeen waxa heestan soo wada qaadiyeen Qamar Soogaani iyo Xaliimo Gobaad sidoo kalena Qamar Soogaani ayaa heestan laga xaday bal saaxiib inta aan mawduucina guda galin waxaan ka codsanayaa inaad videoga like gareyso sidoo kalena si share gareyso saaxiib bartana YouTube-ka Cabdalla Deeqsina subscribe ay oo montay subscribe-ka yar ka dhac ku si sidoo kalena furo gambalelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo gelino bartana YouTube-ka ee quruxda badan wad ku maasantahay saaxiibkayga qiimaha badan oo daawashada muuqaalkayga iyo muuqaalada aan soo gelino barteena YouTube dhamaantood aad baad u maasantahay waxaan saaka idin haynaa heestan oo ah heesta ay soo qaadeen Ismaaciil Arka iyo sidoo kale Xaliimo Gobaad waxayna ugu wada luqeynayaan si talantaaliga labadooduba heestan Ismail, indahagana Ismail, awadadana Ismail, indahagana heyarka, awadadana heyarka. Egmadii hore Xaliimoy, ashqararkii Xaliimoy, wanasoobe Xaliimoy, indahagana Gobaadey, awadadana Xaliimoy. Dimawlashada kamay dimawlashada yarimiyo hoya mahan amus bankale madugene jacilowgi wani darano mantiro qura afka laga madugene jacilowgi wani darano mantiro qura afka laga daba daawadayaal heestan ay soo wada qaadeen fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad iyo sidoo kale fanaanka qiimaha badan ee isaguna Ismaaciil Arka ayaa la turjuntay amba dad badan ay ka soo reaction dhiibteen taasi oo dadku ku tilmaamayeen in heestan soo wada qaadi rabeen Qamar Soogaani iyo sidoo kale Xaliimo Gobaad balse bedelkeeda ay Xaliimo Gobaad iyo ka hoos xadeen Ismaaciil Arka heestan ay sidaas u soo wada qaadeen Ismaaciil iyo Xaliimo Gobaad heestan ayaa markaa dhalisay hadalhayn fara badan markaas la soo galiyay barta gaarka ee YouTube-ka ee Xaliimo Gobaad subaxnimadii hore ee shalay toole balse waxaan aad u baadhnay amba aan iskaga aamusnay inaan soo dhex galno dadkii badnaayay reaction ka dhiibanayay balse waqtigan ayaan ka soo dhiibinay reaction-keena annaka oo ku saleynayna xaqiiqooyinka iyo cadeymaha baaritaanka eenu hayno run ahaantii codadka qaar marka aad eegto amba codadkii uu soo qaaday Qamar Soogaani heestan waa hees ay soo wada qaadayeen Ismaaciil in nidhahdee Qamar Soogaani iyo Xaliimo Gobaad sidoo kalena waxa ka soo hoos qaatay sida ay dadku u badinayeen amba dad badan oo kala duwan oo weydiinay ay kuba ahaantoodba ka sinaayeen Xaliimo Gobaad iyo Ismaaciil Arka oo ku wada luuqeeyay isla heestan balse fanka Soomaalida waxa ku cusub in heesay kala xadaan laba fanaano kala ah laba walaal oo wiil oo ku wada nool magaalo amba meel qurahaatay kuwaasi oo fankana isu mid ugu jira sidoo kalena waxa kale oo ku cusub inay fanaanadu kala jeclaysato laba wiil oo walaalaheedo kala ah sidoo kalena fanka ku wala jira cad ahaan waa la kala jeclaysan karaa balse waa inaad kula qaado ereyada uu qaadayo heesta uu qaadayo ma ahna mid ka duwan oo aanad ka hoos qaadin heestiisana waqtiga badan ku soo bixiyay fanaanadan oo ah fanaanad inta badan lagu naanayso amba lagu tilmaamo fanaanadii u labisan jirtay sida Hinduuga amba dadka haysta diimaha kale ee sida Hinduuda tirishooyinka lagu yaqaano Hindida ee Bollywoodka oo kale amba qablaha ka soo jeeda qaaradaha fog ee Afrika kuwaas oo fanka marka ay galaan sanoo kale u labista
walow fanaaniinta Soomaalidaba sanadahan dambe ay ku soo biirayeen fanaaniinta sida modelka oo kale u labista ama modelaystayaasha ee sida weyn isugu xayeysiiya goobaha fanka amba xidhadharka ku dhalijisan ee ay iyagu jirkoodu ka muuqanayo. balse fanaanada Xaliimo Gobaad ayaa lagu naanaysaa fanaanad in badan fanka ku soo jirtay sidoo kalena si jiidasho leh in heesaha u qaada sahayraga ugu maran habaabiso. balse si kastaba ahaatee Ismaaciil Aarka heestan uu soo qaaday muxuu qabar soogaani ka odhan doonaa waa arrinta ugu weyn ee la isku weydiinayo baraha bulshada. balse daawada adiga maxay kula tahay aragtidaada commentiga noogu reeb, sidoo kalena fiidiyoga share garee. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. afka